saddex bartamaheeda waxaan aragnaa haweeney lagu magacaabo daraas oo ku kacday dhawaaqka diyaarad soo degaysa hayna markiiba diyaarsatay hubkeeda oo ay isla markiiba bilowd inay madaxa ka toogato ninka maalqabeenka ee kasoo degayay diyaaradaasi kadib muuqaalka waxaa layna barayaa askari hore oo lagu magacaabo liifa kaasoo riyo qarow ah ku kacay waxauna go'aansaday inuu madaxiisa soo dejiysado oo uu aaday dhinacaya xeebta isla subaxnimada isagoo xeebta joogan waxaa usoo dhacay qoraal u sheegay inuu markaasi yimaado saldhigga ciidamada ee badda kadib liifa ayaa yimaaday saldhigga ciidamada badda halkaas waxa uu kula kulmay haweeney wakiil ah haweeneydaasi waxay ogtahay inuu ninkan uu leeyahay xirfad aad u wanaagsan oo uu caan ku yahay khaasatan qaybta toogashada isagoo hadda ma laha wax qoysi sidoo kale asxaaba waxayna usoo bandhigtay inuu markale shaqo u bilaabo kadib deegaanka Lithuania waxaan aragnaa daraas oo markaas la kulantay aabaheeda khaasatan qabuuraha sanad guurada dhimashada hooyadeeda aabaheeda waxa uu u daaqaaday inaan hadda laga daweyn karin xanuunkiisa kansarka sidaa darteed waxa uu ku dhawaaqay inuu dhiman doono afayto jacaylka ugu dambeyntii la midoobi doono xaaskiisa bishii Sebtembar markii la gaaray Livia ayaan aragnaa oo hurdada laga toosiyay diyaarad ciidan ayuuna saaran yahay askariyadii ayaa dhammaan agabkiisii oo dhan u diyaarisay waxayna u sheegtay hadda waxaa la gaaray waqtigii aad duulimaadkani ka boodi lahayd Livia ayaan aragnaa markii uu diyaarad ayuu ka booday baarashuudka ayuu la baxay si nabad ah ayuuna dhulka ugu degay oo uu safarkiisii lugta ahaa sii watay safarkaasi waxa uu ahaa safar uu xitaa buuraha uu ku fuulayo socod dheer kadib ugu dambeyntii waxa uu soo gaaray erifka waadi aad u weyn ana meesha kusoo dhaweeyay askari lagu magacaabo JD kaasoo halkani ka shaqaynaya muddo sanada labadoodii waxay isku raaceen inay aadaan dhinacayo taawarka galbeeda waxayna markaasi hagaajiyeen koronto dhaliyaha waxaana aagga ugu taalla beer khudrad ah inka kale sidoo kale waadigani taawar ayaa ku yaala dhinaca bari laakiinse waxaa mamnuuc ah in taawaradani midba midka kale oo xiriir la yeesho waadigani sidoo kale dhulka waxaa ku duugan miinooyin qaybta waqooyi iyo qaybta koonfureedna waa qaybo kala xiraan JD waxa uu bilaabay inuu hareeraha uu tuso isagoo weliba hadda u sharxayo howlgalka maalin kastana Livia waxaa laga rabaa inuu soo lugeeyo dhinacayo erifka galbeed oo uu soo hagaajiyo hubka waa inuu sidoo kale hubiyaa xandaabka xakameynta waa in miinooyinkiin uu dib u rakibaa isagoo weliba uu sheegay raadiyaal ciidamada waxa uu la xiriiri karaa 30 maalin hal maalin oo kura dee dhacdo laakiinse xaalad degdega markii waxaa taabanaysaa badhanka degdega waxaana laga yaabaa in si degdeg ah meesha lagaaga caawiyo JD waxa uu sidoo kale u sheegay in meeshani aad u da'weyn tahay meeshan xitaa la sameeyey waqtigii dagaalkii qabooba koox military ayaa goobtan sirta ah sameeyay waxauna u sheegay waa inuu markaas iska ilaaliyo rag lagu magacaabo holomanes kaasoo xitaa dhawaaqyadooda qaybta hoose uu ka maqlay isagoo u sheegay dabayaaqadii 1940 saddex guuto ciidamo fardoore ah ayaa qaybta hoose aaday laakiinse ma jiro hal qof oo dib u soo noqday sidaa darteed militarigu waxa uu xoogga saaray si uu ciidamadaas u xakameyn lahaa oo aysan dibadda u gudbeen askarigii JD meesha ayuu iskaga soo tagay isla markiiba ciidamadii ay u baaqay diyaarad helicopter ayaa timaaday oo sidii ku qaaday askarigaas ayaa weydiiyay aqoonsigiisa JD markuu sheegay nambarka sirta isla markiiba waxa uu bilaab inuu madaxa ka toogto waxaan ogaanaynaa isla wakiilkii Livia soo diray inuu ka dambeeyay amarka dilka Livia ayaa nolol maalmeedkiisii bilaabay waxayna u muuqataa nolol boring ah maalintiisii ugu horreeyay ayuu bilaabay nidaamka dayactirka qaybta amniga iyo xitaa raadiyaha deertiisi yar ayuu ka shaqeeya waxauna markaas arkay dhaqdhaqaaq ka socda munaarado kale indhasheeriyaha ayuu isticmaalay waxa uu meesha ku arkay haweeney lagu magacaabo daraasa habeenada ka mida duufaan xun ayaa jirtay Livia ayaana riyo qarow ah ku kacay oo bilaab inuu munaarada u hubiyo balse waxba ma jirin sidaa darteed waa uu isdejiyay waxauna munaarada kale ku arkay in daraasa ay weli soo jeedo oo aysan seexaan hadda bilaha ayaa kasoo wareegatay daraasa hadda keligeed ayay ahayd waxayna bilowday inay u dabaaldegto dhalashada iyadoo weliba caajis ay noqotay waxayna bilowday inay markaasi xabad kor u rido si ay Livia ugu dhawaaqdo sana indhasheeriyaha ayuu isticmaalay waxayna bilowday inay weydiiso magaciisa Liviana warqad ayuu kor isoo ku sheegay inay mamnuuc tahay inay labadooda wada hadlaan sidaa darteed daraasa waxay ugu jawaabtay inay sameynayso wax kasta oo ay rabto maadaama ay ku beegan tahay dhalashadeeda Livia aad ayuu ugu qaslay firfircoonidooda sidaa darteed waxa uu bilaabay inuu magaciisa u sheego daraasa ayaana bilowday inay muusiga ciyaarto iyadoo weliba ka dalbanayso inuu
inuu isna ciyaaro halka isna uu sheegay inuu sababka ciyaarka ku fiican laakiin xirfad kale oo la yaab leh uu leeyahay waana toogashada daraasa ayaa markii hore xirfadeedii tusaysa halka isagin oo bilaab inuu si degdeg ah dhalada caabitaankeed u toogto laakiin wada hadalkoodii waxa hakiyay markay arkeen bahalladii oo markaasi dhismaha soo koraya waxayawaano kariibaha qaabkooda waxa uu noqdaa qaabka aadanaha balse waxay u muuqataa inay isbedelaan isla markiiba labadoodii waxay bilaab inay si jamcaha iyo la dagaalamaan iyagoo qarxinaya bambooyinka waxaa jira dhowr makhluuq oo isku daya in dhismaha gabadha ay fuulaan sidoo kale Olivia ayaa toogashada wadaya maan makhluuqyadiina daqiiqado gudahood ayuu ku dilay iyagoo markaas u malay inay hadir ay dhamaadaan balse mid ka mid ah bahalladaas ayaa soo koray balkonka daraasa iyana waxay bilowd inay qorigeedii dhowr xabo ay ku toogato kuwa kale ayay ahaayeen mid ka mid ah ayaa miinadii ku qaraxday qaraxaas ayaa waxay keentay finanka inay daraas ay soo gaaraan xeewaanadiin waxay ka faa'iideysanayeen fursad ay dhismaha ku soo koraan sidaa darteed markaasi Levi ayaa hubkiisa culus adeegsid oo bilaab inuu derbiga qaybteedii kale u weeraro isagoo markaasi fursad u siiyay inay daraas ay badbaado subaxdii xigtay daraas waxay bilowday inay nabarkeedii ay iska dhaydo iyadoo maanta u sheegays inay dhalashadeedii ugu wacneed ee ay abid dhigato dabadeed maalintii xigtay qaybtoosa ayuu dhaadhacay si uu hagaajiyo dhammaan burburkii soo gaaraya minooyinka ayuu bedelay isla markiiba diyaaradda aan tuuliyaha lahayn ayuu meesha ku arkaya bishii December ayaa la soo gaaray oo ku beegneyd bishii Christmaska sidoo kale waxa uu hambalyeeyay daraasa wixii markaa ka dambeeyay labadoodii waxay bilaabeen inay waxyaalo badan ama sheekooyin badan ay wadaagaan waxaa la soo gaaray 14 February daraasa ayaan aragnaa oo aad u ilmeynaysa maadaama aabaheedii hadda uu dhintay markaas isaga ayaa weydiinay waxa ku dhacay waxay nooga warantay geerida aabaheeda halkeeyadiina ay jeclaysatay inuu markaasi uu soo agjoogo maadaama murugo badan ay dareemayso isla maalintii xigtay dhammaan agabka iyo hubka ayuu bilaab inuu isticmaalo gantaal ayuu dhinaca kale u tuuraya iyada ayaana markaasi ka caawisay si uu markaasi fudud dhinaca xariga ugu soo gudbo xariga ayuu dhinaca kale ugu socdaalay wax yar kadibna waxa uu soo gaaray munaaradii ay joogtay daraasa waxauna bilaab inuu ubaxadiid ahaan u siiyo daraasana labis aad u fiican ay iyana bilowday inay soo xirato labadoodiina waxay bilaabeen casho aad u qurux badan inay wada cunaan la habeenkaasi qofka kale amuurihiisa ayuu bilaab inuu uga waramo subaxdii xigtay waxa uu dhaqaaqay inuu dhinacaya munaaradiisi uu dib ugu soo laabto laakiinse xariga ayaa markiiba ka go'aya taasoo keentay inuu dhulka qaybta hoose uu ku dhaco balse baarshuudkiisi ayuu furtay halka daraasana hubkeedii ay qaadatay si isaga usoo badbaadiso dhowr meel ayay godka qaybta hoose ay labadoodii ugu wada dhaadhaceen halka isagiin uu ku dhacay webiga Levi waa mid miyar darsan balse mid ka mid ah geedaha xididadiisi ayaa kabtay laanta ayaana markiiba dhaqaaq bilowday waxaan ogaanaynaa in iyana ay bahal tahay waxayna bilowday in Levi u soo dhawaato si wanaagsan uu kacay uu bilaab inuu dhammaantoodii u weeraro kadibna dhulka ayuu ku dhacay meel dhoobo oo kale ayuu ku dhacay laakiin markiiba sidoo kale iyana waa isbedeshay waxayna bilowday in Levi ay qabsato isagoo weliba haddii aad u adagta inuu ka kaco si wanaagsan daraasa ayaa meesha tilmaaday oo bilowday inuu hubkeedii ku dhufato si Levi u badbaadiso labadoodii hadda dib ayay u midoobeen waxayna bilaabeen in dhinacaya munaaradooda ay dib ugu laabtaan waxayna maqlayeen qaylo fardo soo socda waxaana saarnaa bini'aadam qaabkiisu geedo isku bedelaya labadoodii waxay bilaabeen intii karaamkooda inay iska difaacaan si ay markaasi munaaradooda ay dib si nabad ugu tagaan waxay ku khasban yihiin inay maraan dhinacaya webiga Livia waxa uu si qoto dheer u eegay makhluuqyadan uu dilay waxa uuna ogaaday inay yihiin ciidamo aad u da'weyn tani oo ka dhigan tahay raggani inay yihiin isla guutadii fardaha ee uu sheekada hore uga sheekeynayay askari waxay soo gaareen magaalo ay oo dhammaan dhismayaasha oo dhami halkan ay dhif wada dabooshay sidoo kale meesha dhulgelin ayaa ka dhacay waxayna maqlayeen qaylo dhinaca kale ka soo baxaysa meel kaniisada ayay bilaab inay ku dhuntaan halkaasi waxay ku arkeen kuraasta inay qolfof ay fadhido sila movilana book ayay maqleen daraasa ayaa kor eegtay waxayna ka aragtay caaro weyn oo bilowda inay markiiba weerar ku soo qaado daraasa mindideedii ayay isku difaacday laba caaro oo kale ayaa si degdeg ah Levi u soo weeraray isla mar ahaanta caaro badan ayaan iyagii sidii ku hareeyay albaabkana raggii qolfofta ahayd ayaa soo jabiyay daraasa ayaana bilowday inay madaxa ay ka wada toogato dabadeed daraasa ayaa bam gacmeed gidaarka ku tuurtay nasiib wanaagsan waxay heleen dalool weyn oo ay ku baxsan karaan waxayna bilaabeen inay keentay u dhex ordaan iyagoo maqlaya makhluuqyadii oo ka qaylinaya meel aad u furtay shaabaan military sidoo kale halkani bini'aadamkii joogay oo dhami waxay isku bedeleen kuwo qolfof ah daraasa ayaa karanta dhaliyaha shiday isla markaana laaba halkaasi cajilad ayuu ka helay waana muuqaal ee halkaasi haweeney ku sharaxayso dhacdadii halkani ka dhacday 1946 waana waqtigii intii lagu guday jiray dhammaadka dagaalkii labaad ee adduunka waxay ka shaqeyn
qorsheynayeen samaynta gantaalo kiimika ah balse suntaas ayaa DNA-gooda ku faaftay waana sababta keentay inay isbedelaan haweeneydaas waxay tusinaysaa in sidoo kale dhirtu ay kasoo fidayso qaybta caloosha iyadoo weliba u sheegtay balse hadda waxaan ku guulaysanay inaysan suntan u gudbin aadanaha intiisa kale halka lava iyo dariisa halkaasi kombyuutar ayayna ka heleen waana mid u muuqda dhammaadka 2000 kombyuutarkaasi mashruucii halkan ee sirtaha ayaa ku tuuganayd baabka ayay markaasi yimaadeen si ay si nabad uga gudbaan bangacmeed ayay meesha ku tuureen laakiinse markiiba haweeneydii ragga ayaa bilaabay inay dabinahan ay u jiitaan halka laaviyan uu bilaabay intii karaamkiisa inuu gabadhaas uu ka daba tago balse aad ayay u adkeyd ninkaasna faras ayuu bilaabay inuu gabadha ku kaxaysto ninka halowgaana daraas ayuu bilaabay inuu helo isagoo rab inuu caloosha dooxaan islamarkii waxay bilowd inay kacdo oo ay iska difaacdo dabadeedna bir ayay soo qaadato oo ay bilowd inay si adag la dagaalanto balse ninkani waxa uu ahaa mid aad u xoog badan kadib koriga dabka ayay soo qabatay xitaa weli ma uusan quusan ilaa markii dambe laaviya uu yimaad uu badbaadiyay bagaca ku horan ayuu eegay oo garowshad inuu yahay waardiyihii ugu horeysay ee ka shaqayn jiray munaarada labadoodii aagga ayay bilaabay inay saamiyaan waxayna halkaasi ku arkeen dhirtii ay saamaysay suntu waxayna markaas ku khasban yihiin inay bondadan ee ka gudbaan si ay darafka kale u maraan ilaa markii dambe daraas ee mid ka mida ku istaagtay iyaga waxay bilaabeen inay ku dhagaan si dhaqsiyaal ayay bilaabay inay iskaga fujiyaan makhluuqadii oo dhami ayaana markaasi kacaya kadib daraasa ayaa bam ku tuurtay iyagii oo dhamina sidii ayay ku hol-aan heeshay joogeen waxay garowshaday inay tahay meeshii nukliyeerka lagu sameynayay ugu dambeyntii halkaas waxay ku arkeen baabuurta ay lahaayeen ciidamada militariga islamarkii waxay bilaabeen inay baabuurka issaaraan si ay munaarada u koraan xarigii xarunta ayay bilaabeen inay baabuurka ay ku xiran waayo weli makhluuqyadii ayaa daba socdaa markiiba baabuurkii qaybta sare ayuu u aanbabaxay waxayna rabaan inay baabuurkani kor ay ku tagaan laakiinse ugu dambeyntii raggaasi ayaa soo gaaray iyagiina waxay bilaabeen inay markaas kula dagaalamaan laakiinse aad ayay u tiro badnaayeen sidoo kale xarigga ayay soo raacayaan baabuurka shidaalkiisi ayay ku daadiyeen islamarkii waxay bilaabeen inay hol-ayaan dhammaantoodna waxay bilaabeen inay ololaan balse xitaa dabkii baabuurka ayuu soo gaaray meesha qarax culus ayaana ka dhashay iyagu markaasi waxay ku kasban yihiin inay xarigga qaybta hoose oo dham ay jaraan nasiib wanaagsi si taxadar leh ayaa hadda munaarada ay usoo fuuleen markaasi labadoodii waxay ku heshiiyeen inaysan kala maqnaan muddo 5 maalmood si markaa haddii la ogaado in qofkan cudurka uu ku dhacay si uu kan kale u dabiibo ay sidoo kale rabaan inay labadooda ay isla baxsadaan oo ay sidoo kale rabaan qorshe ay rabaan inay xarumahan oo dhami ku burburiyaan markaasi leeviya xarunta marinkiisi ayuu samaystay dib ayuuna goobtiisa ugu laabtay maalintii xigtay raadiya ayuu bilaabay inuu la hadlo madaxa ka sareeyay ayaa haweeneydaasi sidoo kale waxay ogaatay in kombyuutarkii sheebaarka yaallay uu shidmaya isna waa uu inkaray haweeneydaasna waxay u sheegtay qofka munaarada kala jooga ayaa laga yaabaa inuu shiday markaasi waxay ku amartay inuu qofkaasi kale uu soo dilo laavi waxa uu iska dhigay inuu hadda hawshan uu aqbalay laakiinse arrinkan uu kasoo horjeedaa kadib waxaa laynoo taaqaadaya in dhismaa ay kaamirad ugu xiran tahay oo ay si toos ahba u daawanaysay waxayna wacday qoliyaheed oo ay ku amartay inay halkaasi aadi doonaan subaxdii xigtay labadoodii qorshaha burburinta munaarada ayay diyaariyaan daraasa ayaana markaa laaviya u garanaysa inay hadda jeceshahay markiiba diyaarad helikobtar ayay arkeen waa ayna dareemeen in iyaga loo socdo askartii markii ogaaday inaysan munaarada joogin diyaaradahan duuliyaha lahayn ayay ku amreysay iyaga loo dilo raasa iyo rasaas ayaa lagu furay iyagiina ay bilaabeen inay diyaaradahani burburiyaan ilaa markii dambe uu burburiyey nidaamka isgaarsiinta oo uu horey u sameeyey maadaama hadda waadiga oo dham uu ku dhow yahay inuu furaha haweeneydii diyaaradda ayay degdeg ugu laabatay si ay meesha iskaga tagaan lava iyo daraasana waxay u bilaabeen inay sida dhaqsiyaha leh maadaama bamkii nukliyeer uu qarxi rab inay meesha ka cararaan ilaa markii dambe bamkii nukliyeer uu qarxay qaraxa xitaa helikobtarka ayuu saameeyey sida ayayna meesha ugu gubteen nasiib wanaagsi laaba sidoo kale biyaha webiga qarkiis ayuu isku tuuraya daraasan iyadu mar hore ayay maareysay inay aagan oo dham ay iskaga fogaato habeenkiina god ayay iskaga hoyatay hadda keligeed ayay noqotay waxaynu go'aansatay inay halkan iskaga fogaato dabil kadib gudaha faransiiska daraasa ayaan aragna oo meel makaxyo hotel ka shaqaynaysa meesha sidoo kale laafiye ayaa yimaadaya aad ayay ugu faraxday inay hadda dhaawac ay si kasoo kabsaday dib ayayna